haweenkoodii bilaa nikaax iyo weligay guursaan la furin waayo gaalay u arkaan masaajidooda kuma tukadaano waxay u yaqaanaan markii la aadaamayo ama taraawiix la tukanayo maxaa gaal aadaami ama taraawiix tukan bay u yaqaanaan waxaa rabaa dadka markaad shubhaynayso horta inaad moogtahay kala saarto oo tidhaahdo masaladaas. daawadayaal tani waa dood diini ah oo dhex martay culimo Soomaaliyeed oo qayb ka mid ah ay yihiin kooxaha takfiirka loo yaqaano. doodan waxaa qabtay Cabdisataar Daahir Sabriye oo ah wariye caan ah oo ay Soomaalidu wada taqaano walibana noqday wariyihii ugu horeeyay ee meel maxfala keena dad iyagoo ku doodaya inay yihiin takfiir. su'aalahan oo noqday kuwo la isku mari waayay ayaa waxaa su'aasha ku hormaraya Sheekh Shibil oo ah dhinaca ka soo horjeeda kooxaha takfiirka. su-aashayda ikhwaani waxaa weeye waxaweyaan jawaabta laga wareerin waxaad tirahdeen qofka ashahaatay ilaa uu camal ku dara islaam noqon maayo macnaa shahaadadiisi waa shahaatay baaris buu ku jiraa in camalka markuu la yimaado heerka markuu gaaro nambarka oo muslimnimadii shahaadadii hore la aqbalayo oo daliil loo qabo. annagu waxaan aaminsannahay qofku in muslimnimadiisa la aqbalayo markii uu aalihadii iyo baatilkii uu caabudayay markuu ka soo fuqo oo uu risaalatul muhammadiya aqbalo fa in taabuu wa aqaamu salaata buu alla leeyahay fa in taabuu waa tawbatun min ashirki weeye tafaasiirta kulli fiiriya markaa ayaanu ictiqaadinaynaa inuu xeradii islaamka soo galay waxba ma qabato taas ayayna ahayd tii nebi maxamed dacwadiisu ay ahayd. ayib ikhwaan waxaan malaynayaa anigu waxaa weydiiyey iyo waxaa laga jawaabay isma laha anigu waxaa weydiiyey shahaadadan goormaa la aqbali ilaa camalu la yimaadaa tirahdeen waa markuu shirkiga ka baxo shirkigii ka bixitaankiisa shahaadadu kuma filaa tirahdeen goormay ku filaan muqtadaha alcamali bimuqtadaha aad soo qorteen shirki laga baxa keliya maaha waajibaad iyo faraa'id iyo arkaan baa jira qofku wuu ashahaatay islaam ma aha weli calaamad su-aal baa saaran goormay calaamad su-aashu ka degayd waxaan weydiiyey goortuu shirkiga ka tago ninka waaba ashahaatay tusaale ahaan qof baa yimid hadda halkan uu soo galay ashahaadadii qabtu yidhi waa loo qabtay nimanka warkoodu waxaa weeye weli islaam ma aha ilaa number temperature kale uu gaaro temperaturekiina ma hayn aayad ma hayn xadiid ma hayn warcad ma hayn okay marka aan ku celiyo hal mar isla su'aasha li hal mar fast kala aan xakama qabo dadku yani waa cajiib haddii la sindirsiyo adilada la akhrinayo macnaha wuxuuna su'aalay sida aan anigu kolley u fahmay qofka markuu ashahaato goorma islaamnimadiisa la qabanaya waxaan anaguna ku jawaabnay shahaadada waxay macnaha qabasho leedahay markii laga toobad keeno shirkiga waxaana loo soo istidlaalsaday aayadda ku jirta fi suurati tawba fa in taabu wa aqaamu salaa wa aataw zakaa تابوا هلا في المفسرين هذا كيفسرين تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. سؤال شيء بالتحديد وحوي ضدك هذا قاعدة فديان كوحدين أهين لا إله إلا الله لا مسلمين بأكتين مسوا قالوا. ضدك المحيين وليين بعد معناها لويديسان أنا وحنا لنا هاي مركز ضدك الصوماليات أما هالنهار فديان أما ملك لهجرانه وحي حق اعتقادك كلما أو قبورها عابدة أو إلهي غير كبر إيا النعف كاعتقاده وحي جانبك كلما كفر بان كامل سميها النبو وحاكلون كفر كامل سميها ضدك اعتقادك كلما أو كتابك إلهي قرآنك إيا سنة وحان كاهين حل مشكلات وأكا إن مشكلاتك أدونك أي حلين كران سيدة الديمقراطية سيدة اشتراكية قوانين الوضع ضدك جانب كاومي نوحانو أرغنا ضد كفر إليهين سواشان جوابته الرمانة كشيء مدى كودين ويقريين ضدك درمان كوحدة دانهين قال يكرمي سيهين أدلة عدبانو هيان يكرمي سيهين هوين كودة ولاية الآن يفرطان لان بيقوسدان ضدك مالهان جروا مساجدا أصنامتي قبورتا لعابدا وشرك بيتهان ديمقراطيات أنا مقابان haweenkoodii bilaa nikaax iyo weligay guursaan la furin waayo gaalay u arkaan masaajidooda kuma tukadaano waxay u yaqaanaan markii la aadaamayo ama taraawiix la tukanayo maxaa gaal aadaami ama taraawiix tukan bay u yaqaanaan madhabkoodii runta ahaa in aanu naqiinay way ka been sheegeen way qariyeen qalyadaas xaqiiqa maaha waxay rumaysan yihiin dhammaan waxaan kooxdooda inay gaala yihiin
runta sheegana ma yiri iblis sheekh shimili okay labada dhinac waxaan ka codsanaynaa laga daayay kuwiga labada dhinac kuwa kale mawduuca ma ku filantahay islaamiyada qofku inuu ku dhawaaqo kelimada isagoo garanayn macnaheeda kuna dhaqmin waxay keenayso inta uu yaana ka bixin yaani sabab wali waa la hayay jawaabo macna sheekhi adiga nafta kuwa ka isaga inta ku weydiiyay wuxuu leeyahay ka muuse jawaabay marka waxay dhexayta waxa soo galay dastuurka iyo dadka hadda qodobada ay sheegaysa haddii su'aal kale aan ugu bedeli karto ugu bedel si macna wada ilaalina mawduuci laga hadlayo isaga waa ka qabanay please oo dadka laa ilaaha illa allah leh haddana ku dhaqmaya lidkeeda waa muslimiin buu leeyahay halkaas ku hortaagan yahay annaguna waxaan leenahay dadka nuqaadkaas inuu mugtay haddii daliilu hayana u keeno haddii kalena uu yidhaahdo macnaha ma garanayo marka su-aashaan weydiiyey waxay tahay marka qof time u helay oo nabi maxamed uu yidhi salaada iska daa weligii sidaa ahaa rukuucdii iyo sujuuddii diiday ma haysaa muxuuse yahay maanta haddaan helo qof leh anigu salaad ma tukanayo xilligii nabiga qof shahaado laga aqbalay bilaa salaadna ma la hayaa samiya mise weligaa ha tukani la yidhi qof yidhi salaad anigu ma tukanayo laga aqbalay oo sidaas macnaha islaamkii lagu aqbalay weligii saxaabi ku ahayd aan tukanaynin salaadaha qaar oo weligii tukan weligii salaadaha qaar aan tukanaynin jawaab su-aasha istimraar macnaha aan fahmayda su-aasheena su-aashaad weydiisay haddaan wax kaa weydiiyey anu waxaan idiin sheega oon hayaa nabiga nin u yimi sal alay salam oo yiri nabigu ka aqbalay waana xadiidka imaamu axmed ibn abi caasim fi laxaad walmathani ay ku wariyeen bisanadin calaa sharti muslim ninkaasi hadhow inuu tukadiyo in kale waa mas'alo kale laakiin nabigaaba ka aqbalay inuu laba salaadood keliya tukado shantii salaadood saddex inuusan tukanaynin saa islaamka ma lagaga aqbali haaya kusoo gal buu nabigu sal slam waxaad rabaa dadka markaad shubhaynayso horta inaad mogtahay kala saarto oo tidhaahdo masaladaas waa saas oo ninkaan yidhi ma rukuucaya saa ma igaga aqbalaysaa ama qalbigayga inkiraad baa ku jirteen ma igaga aqbalaysaa nabigu inuu liajli dacwa si dadkan uu ugu sahlo dacwada inay ahayd aynan ahayn inuu ka aqbalay salaada inuu diido xaqiiqadu saas weeye kasoo qaybgalayaasha qiimaha ee qayaha badan min hal su-aal ayaan kusoo koobaynaa marka barnaamijka inta kale waan kadib waan iska xiraynaa culamada waan ballami doonaa may waqtigii su-aasha lagu jawaabi lahaa waa wadanaa cadayntaadii hayaa culimadu waxay ka dhaheen haddii ay ku ogolaan hadda in islaamnimo laga aqbalay hayaa حد الإسلام من الأقبال شوف هاي ما هذا وحي كوسو دغ may waan مو أقبال إنسان مسلم أو أسد جواب ليش واحد شعنا من مدوائنا ma inuu isagoo inkiray oo yidma tukanayo uu muslim yahay lan maadan tafaasiishaan nasiir maada kala qaadin مسلم أوكي الحمد لله من يهو أنا وحالي nabigu wuxuu ka aqbalay nin yiri laba kaliya tukan saddex tukan maayo islaamnimadiisii waa la aqbalay hadda hadduu qof yimaado oo yidhaahda shanta salaadood laba kaliya tukan saddex tukan maayo waanan islaamay ma laga aqbali nacam